السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada waa walaashin Uma Mansuur. Waxaan rabaa maanta inaan maaragtay gabdho badan mowduuci aad ii weydiiyeen aan ka hadlo oo ah waqtiga maanta lagu jiro sidee baa maaragtay lagu noqon karaa qof hantiilo ah ama sidee ku noqonaysaa qof maaragtay taajir ah ama qof xoolo badan haysto. waqtiga maanta ku jirno waa 2024 adduunyada maaragtay heerka aragteen dhaqaalaha uu maraayo maciishada ay marayso marka Uma Mansuur ay 4 saac dhaqaalaha ka hadashaa wax dhigaana leedahay marka ujeedada aan ka leeyahay marka idin leeyahay wax dhiga ma inaad taajiriin noqotiina ma inaad hantiilayaal noqotiina barnaamijkeena maanta mowduucaas ayuu ku saabsan yahay because gabdho badan ay su'aalahaas i weydiiyeen soo dhawaa shaaxaada kafeegaada waxa jecesha soo qaado videogan aad u dhageyso wax fara badan ayaad ka faa'iideysaa horta haddaan runta isku sheegno ani inta badan waxa aan la hadla ama aan dhiirigeliyo waxay u badan yihiin hooyooyin waxay kaloo u badan yihiin gabdho Soomaaliyeed oo aan ognahay inta badan gabdhaha Soomaaliyeed oo maanta qurbaha ku nool adduunka meesha ay rabaan ka joogaan laakiin qurbaha joogo ayaa inta badan maaragta la hadlaa ama waxaan la hadlaa gabar Soomaaliyeed meel kasta ee dunida ka joogto ama Soomaaliya ha joogto ama qurbaha joogto waa la kala fursad badan yahay waa la kala nasiib fiican yahay waa la kala wax qabad badan yahay laakiin ani inta badan dadkan dhiirigeliya ama dadkan la hadlo waa dumarka Soomaaliyeed markii loo fiiriyo dumarka kale oo dunida ku nool markaan ka hadlayo dadka maaragtay anigoo kale wixii aniga iga weyn iyo wixii aniga igu fac markaan ka hadlayo waxaan u badanahay dumar dhaqaale aad u yarna soo galo waxaana soo galo waa wax aad iyo aad u yar qofba qofku ka dhaqaale yarya ama qofba qofku waxa soo gala ka yaryahayna wuu ka fursad hooseeyaa inuu hantiilo noqdo ama inuu hanti samaysto sababta mar walba dhaqaalaha ku soo gala ay hooseeyaan waxaa meeshas kaaga soo baxayso fursadda inaad hanti badan samaysatid ama inaad lacag badan samaysatid way yarta sababta waxa ku soo gala ayaa yar marka kulli hooyooyin ayaa nahay waxaan u badana hooyooyin guri joogto ah waxaan u badana qaar badan oo haysan maaragtay xirfaday ku shaqeystaan qaar badan oo haysan shahaadooyin hadii xataa wax barteen shahaadooyin hoose ayaan u badanahay oo maaragtay mushaarada aan qaadano teena ugu badan ayaa waxa laga yaabaa bishii inay ku shaqeyso $5,000 ama €5,000 waa teena ugu badan oo la dhigi karo wax fiican ay barato jaamacad ay ka soo baxday ama ayadoo maaragtay college ka soo baxday saacado aad u fara badan ay shaqeysaa laba shaqo ay ka shaqeysaa lacag waxay sameysaa adi $5,000 ama wixii ka hooseeyo marka waa dareemi kartaa waa mushaar aad iyo aad u hooseeyo waay ma fahmaysaa qofka markuu qaadanayo 5,000 iyo wixii ka hooseeyo ama 2,000 iyo wixii ka hooseeyo ama 3,000 iyo wixii ka hooseeyo ama 4,000 iyo wixii ka hooseeyo oo hooyo aad tahay oo ubad aad haysatid oo qurbe aad joogtid oo haddana sidaa ognahay hooyooyin markaan nahay ilmo fara badan ayaa haysanaa gabadheena ugu yar waxay haysataa 4 cunug ama 5 cunug ama 3 cunug oo waxaasoo dhan saameyn ayay nagu keenaysaa waxay yareynaysaa fursadii aan shaqada badan ku sameyn lahayn waxay yareynaysaa fursadii aan dhaqaalaha fara badan ku sameyn lahayn sababta markaa rabtid dhaqaale inaad samayso waa inuu mushaar fara badan ku soo galo ma u badnin hooyooyin ganacsadayaala ma u badnin hooyooyin ma aragtay sheeg maaragtay wax gado ama beec sameeyo oo dalaaliin uma badnin sababta qofka markuu dalaal yahay dhaqaale aad u fara badan ayuu sameyn karaa waxay ku xirantahay inta shay uu gado inta wax uu dalaalo Soomaali markuu yahay adduunka dalaalka ugu dhaqaalaha hoose waa dalaalka Soomaaliya dunida kale dalaalintooda qaar waxay qaataan $1 milyan qaar $2 milyan wax ku dalaalaan oo waa dad maaragtay wax bartay oo maaragtay adduunyada maaragtay wax gadid iyo wax qancin iyo qofkan sida wax loogu qanciyo sida wax looga gado waa dad tagay oo xidigaha hiigsanay marka waxaan u badanahay inaan nahay shaqaalooyin ama inaanba shaqaalaba ahayn oo nahay hooyo guri joogto ama ceer qaadato ama ninkeeda oo u soo shaqeeyo gabadha marka noloshaas ku nool dhaqaalaha inta leeg uu soo galo in ay hanti sameyso ama inay wax qabsato waa fursad aad iyo aad u yar runta markii laga hadlo 10% ayay noqonaysaa fursadda ay hanti ku sameysan karto ama taajirad ay ku noqon karto runta markaan isku sheegno okay
fadlan waxaan kaa codsanaa youtube-kayga haddaa ilaa intaan videoga soo gaartay inaad like ii saartid, inaad comment ka bixisid, inaad share ii dhahdid. saddexdaba haddaa ii samaysid waa i farxad gelinaysaa. 10,000 oo subscribe ayaan u dabaaldegayaa. 100 iyo waxaa iga dhiman 70 qof saacadan hadda videogan aan duubayo 10,000. isku day inaa halgankaas 2024 riyadeyda aa ii rumaysid si youtube-kayga oo 10,000 oo subscribe uu gaaro. okay, marka maadaama aan anaka dhan saas nahay, Mansuur markay ku dhahayso wax dhigo, dhaqaale sameey, lacagtaada xisaabi, budget sameey, uu sheerar gado, dhulal gado, ma ka wado inaan ku leeyahay taajirad noqo, ma ka wado inaan ku leeyahay hanti far badan aan sameyn kartaa, laakiin waxaan ka wadaa inaan ku dhaho yacni waxaa noqotaa qof bilaa welwel noolaado oo waxa soo galo ay ku filan yihiin oo og waxa uu haysta iyo waxa ka baxay, waxa yar uu ka dhigan kara sanadkiina wax yar ku samaystay si waxaas berito ay tartiib u dhaldhalaan qofku ka fursad oo xilli hore ka bilaabo hadhow uu ka jaanis fiican yahay, uu ka hanti maaragtay badan yahay. sidaa darteed gabarba gabadha yaraanta uga soo bilaawdo inay boos yar iska gadato, iska ilowdo, share yar iska gadato, iska ilowdo, haddana sanadka kale share yar ku darto, berito way ka fursad fiican tahay gabadha ayadoo weyn bilowday. because sanadkii oo dhan waxaa laga yaabaa inaad 6,000 oo dollar save garaysid ama 6,000 oo euro save garaysid ama 10,000. gabadha ugu badan 25,000 ay sanadka save garayn kartaa. 25,000 xoolo fara badan ma aha, wax weyn kuuma gooyaan, taajiradna kaama dhigayaan, laakiin waxay ku gaarsiinayaan heer aan noqotid qof ma aratay aan gacan maran ahayn oo ugu yaraan wax yar aad haysato, wax yar oo ma aratay hantiilo lama dhaheeyo, wax yar oo noloshaada ayaad ku filnaatay, oo waxaa tahay gabar aan maanta ka walwalaynin hadday rabto holiday inay aado, gabar aan maanta ma aratay ku xisaabtamayn mushaarka shaqaalaha bis ay soo gasho ama ceer kaliya ku xisaabtamayn, oo marxaladaas ka soo gudubtay oo ah inay 2 meel ama 3 meel wax kaa soo galaan, oo wixii ayako iska yar guri yar oo 200 oo kiro ka qaadato, share yar oo sanadkii 2,000 kaaga soo dhacdo, kistaas yarka waxaa ku noosha nolol yaroo iska macquula, waxaadan waa wax ku xisaabsan ood ogtahay waxaad haysato iyo waxa aadan haysan, oo waxaa tahay gabar yaroo bilaa welwel nolosha noolo nolosheeda habi iska taho canjeeladeeda iyo maaragtay sokorteeda iyo muufadeeda isku dul saaran yihiin. muhiimadda aan ka leeyahay wacyigelintayda waa saas. haddii aad sameyn kartid inaad dhaqaalaha ku soo kala kordhisid, inaad maaragtay wax baratid, ama aad gabar wax baratay mushaar fiican qaadato, qofku ka mushaar badan yahay uu ka horumar badan yahay, qofku ka mushaar badan yahay uu uga fursad badan yahay soo hanti ku sameeyo, uu uga fursad badan yahay soo wax u qabsado, uu uga fursad badan yahay soo wax meel ku dhigo. marka ama midda dhaqaalaha hoose soo galo iyo midda dhaqaalaha sare soo galaba, muhiimaddeedu waxa waa inaan inaanan u noolaanin noloshii annaka nagula soo koriyo, ama aanan dhihin hooyada iyo aabaha iyo ehelkayga ayaan faqrinimadii ka dhaxlaa iyo wax la-aantii. oo maadaama aan nahay gabdho isqurbo imaaday, gabdho soo dhoofay, gabdho wax baran karo, gabdho shaqaysan karo, gabdho waqtiga iyo fursadda ka faa'iideysan kara, inaan fursadda iyo waqtiga iyo waayaha maanta aan haysano aan ka faa'iideysano, oo aanan nolosheena aysan noqonin waxa yaroon haysano inaan ku qanacno, waxa aan haysano wax ka badan aan sameyno oo wax fiican aan qabsano ayay ta ulujeedkayga. ma ahana ulujeedadeeda ma ka wado inaad taajirad 2 maalin lagu noqdo iyo inaad 5 sano ku taajiraysid iyo inaad xoolo badan iska sameynaysid. lacagtu waxay u baahan tahay juhdi in la dhigo, waxay u baahan tahay dhigidda ka hor juhdi lagu soo shaqeeyo oo lagu soo kasbado. sababta waa inaad shaqo aadid, waa inaad wax barataa, waa inaad soo shaqaysaa, waa inaad fikirtaa oo maskaxdaada iyo maankaada tuujisaa, oo aad maaragtay intaad meel fadhiisata ka fikirta sideen dhaqaale ku sameeyaa, meeqa meel wax iga soo galayaan, sideen hanti ku sameeyaa. waxaasoo dhan ayaa ka horeeya hantiile inaad noqotid. laakiin ani waxaan ka wadaa yaanaa noqonin gabdho gacan banaan, yaanaa noqonin gabdhaha waxba haysanin. sababta maanta inaad 2 guriyo oo maaragtay 100,000 haysatid ama 10 boos oo maaragtay waxa ka yar 300,000 ama 500,000 ama maaragtay sheeg nus milyan ama 1 milyan wax ka yar hanti lama dhaho. waxba ma aha, wax ay tahay malaha, waxaas waa uun iska bilow, ma fahantay. laakiin markaa rabtid inaad hantiilo noqotid, inaad taajirad noqotid, waa wado dheer waay. soomaalidana sideedaba hadday noqoto rag iyo dumarba aad ayaan dunida markii la dhaho ugu hooseynaa inaan hantiilayaal noqono, dad hodana noqono, dad xoolo badan haysana noqono. waxaan u badannahay inta badan dad wax ku filan haysto inaan nahay. sababto qofku inuu taajir noqdo, inuu hantiilo fara badan, hanti badan haysto, xoolo badan soo galo, mushaar badan qaato, iyo inuu qof
noloshiisa ku filan laba farqi weyn ayaa u dhaxeeyo marka badankeena xataa marxaladda koobaad oo dadka dunida joogo shaqaalanimada xataa ka sii hooseena oo inta shaqaalaha ahaaba yarba Soomaalida markii la dhaho inta shaqeyso ayaaba aad u hooseyso badana Soomaalida waxay u badan yihiin dad aan shaqeysanin qurbaha markay joogaan ama dad ciir qaato ay u badan yihiin marka mar walba oo fursadaadu ay hooseyso wax soo saarkaadu wax qabadkaadana wuu hooseena laakiin aniga waxaan ka wadaa gabarba gabadhay ka ilma yar tahay gabarba gabadhay maanta maanta ka yar tahay way ka fursad badan tahay sababtoo muhiimadda waxa waaye berrito markaad weynaatid ilmaha markay ka koraan ciirtaad qaadatid markay ka istaagto inaadan ku fikirin wiilkayga ayaa 2,000 ku shaqeeyo lacag isiinaa iyo gabadheeda ayaa lacag isiinaa oo aad noqotid hooyo aan ubadkay dhasho culays saarin oo ayada nafteedu ku filan oo haddii u baahato inay Soomaaliya u guurto xataa ugu yaraan haysato guri yar ay kira ka qaadato iyo guri yar ay ayada degto ubadkeedii aan culays saarin ayakana haddii rabaan ilmihii holiday ugu imaadaan ama xataa ilmihii ayayada u ahayd inta loo geeyo awoodo inay quraanka barto ay cunugeeda dhigi karta dhib malaanaa ku heena biilna kaama rabo hooyo waxtar leh inaa noqotid ubadkay dhashana culays aan saarin sida adiga maanta culayska kuu saaran yahay oo maanta dadkaada inaa wax siiso ay culays kuugu tahay aadan adigana ubadkaada culays u saarin muhiimadda aan ka leeyahay wacyigelinteyda ama aan idin leeyahay wax qabsada waa taas ma ahane ma laga wado inaa idin leeyahay waa taajiraysin sababta gabdho fara badan ayaa ugu dhaho lacagtan iyo xoolahan iyo waxaan aa ka hadashay intee laga keenaa waxaan waa wax hoos laga soo bilaabayo waa shilin wax loo geenayo waa wax la rabo inaa noqoto qof naftiisa yar ku filan oo qof yaroo maarata wax yaroo haysto wax ku filan ay noqdaan noloshuna ay u noqoto nolol yaroo degan oo aan noqonin qof gacan maran qof welwelsan qof aan waxba haysan qof berrito markuu dalkiisa tago la dhaho intaas oo sano ayaa qurbo ku maqneeday maxaad qabsatay oo ugu yaraan buush yarood gasho maaragtay iyo wax yarood maaragtay aad ka maarantid maanta haddaad u baahato wadankii inaad tagtid 2 sano 3 sano aad ku noolaan kartid adoo ka walwalayn yaa isoo biilaayo muhiimadda aan wacyigelinteyda ka leeyo oo aan rabo gabdho fara badan inay ku baraarugaan oo wax qabsadaan waa intaas ma ahane ma ka wado inaad taajiriin noqonaysiin oo Axmed Nuur Cali Jimcaale iyo Dahabshiil oo kale inaad noqonaysiin ma ka wado sababtoo Soomaali oo dhanba uma sameysno inay dad hodan ama dad taajiriin ay noqdaan because dunida maanta markii loo fiiriyo dadka ugu faqrisan oo ugu gaajada badan oo ugu nolosha hooseeyo ugu maaragtay wax soo saarka yar oo ugu maaragtay tayada yar ayaan dunida uga jirnaa anakoo wadan hodan haysano anakoo dhaqaale fara badan wadankeena macdan ku jirto gaas ee wax walba haysano nabad ma haysano dad fikir ma haysano dad maskaxdooda tuujiye ma haysano because aaskii nolosha ayaanba wali la silacsanahoon wali aan maaragtay aan la rafaadeynayo wax soo saarkeena iyo wax qabadkeena iyo ayu juhdiga aan bixina aad u yar Soomaali hadana marka dumar hadaan nahano de waaba ka sii hooseenayo ilmo dhalid iyo ilmo korin iyo qoyskeeni iyo nolol badan iyo rafaad badan iyo jahalgam fara badan ayaan ku jirnaa inaa wax soo saarno inaa hanti sameeyno inaa shaqeyno aad ay fursadaas maaragtay ay u sii hooseysaa waxaan ka codsanayaa video